madashan oo ah fagaare kulmiya haldoorka iyo hoggaanka Soomaalida sanadkiiba mar ayaa looga arrinsaday 4 qodob oo kala ah dhamaystirka dastuurka kumeel gaarka ah, taabagelinta nidaam federaal oo dhammaystiran, xasilinta dalka iyo samaynta ciidan qaran oo heshiis lagu yahay, qabashada doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025. Dhamaystirka dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah. madashu waxay bogaadinaysaa dadaalada ay sameeyeen wasaaradda dastuurka, guddiyada baarlamaanka federaalka iyo kuwa madaxa bannaan ee dastuurka, kuwaas oo sameeyey daraasado qiimo leh soona bandhigay xulashooyin la xiriira qodobada xasaasiga ah ee dastuurka. Ha yeeshee madashu waxay walaac ka muujinaysaa qabyatirka daba dheeraaday ee dastuurka kumeel gaarka ah, kaas oo ay taabagelintiisu saldhig u tahay dowladnimada dalka iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed. madashu waxay garawsatay in sababta ugu muhiimsan ee loo dhammaystiri la'yahay dib u eegista dastuurka ay tahay maqnaanshaha heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah. madashu waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay si degdeg ah heshiis uga gaaraan qodobada siyaasadeed ee dastuurka si ay u soo idlaato dib u eegistiisa iyadoo loo marayo wadiiqada isqancinta iyo isku tanaasulka. sida ku cad qodobka 134aad faqradiisa 2 ee dastuurka kumeel gaarka ah, madashu waxay ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo hirgeliyo qodobkaas, lana howlgeliyo xubnaha ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka u soo magacaabeen guddiga dib u eegista dastuurka sida ku cad dastuurka kumeel gaarka ah. madashu waxay ku baaqaysaa in madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay yeeshaan wada shaqayn joogto ah oo heerkeedu sarreeyo. 2. Taabagelinta nidaam federaal ah oo dhammaystiran. madashu waxay dareen ka muujinaysaa kala aragti duwanaanshaha soo noqnoqday ee u dhexeeya labada heer ee dowladda Soomaaliya. madashu waxay garawsatay in dhammaystir la'aanta qodobada federaaleynta dastuurku ay tahay sababta ugu weyn ee horseeda khilaafka joogtada ah ee labada heer ee dowladda Soomaaliya. sidaas darteed madashu waxay ku baaqaysaa qodobada soo socda. 1. in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay isku ixtiraamaan awoodaha uu u kala xadeeyay dastuurka kumeel gaarka ah. 2. madashu waxay soo jeedinaysaa in awoodaha dastuurka ee aan kala xadeysnayn una baahan heshiis siyaasadeed oo kama dambays ah looga sii shaqeeyo jawi wada ogol iyo wada tashi joogto ah oo u dhexeeya labada heer. 3. si waafaqsan qodobka 111 faqradiisa F ee dastuurka kumeel gaarka ah, madashu waxay ku baaqaysaa in la sameeyo guddiga wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah Interstate Commission, kaas oo waajibaadkiisu ugu weyn uu yahay fududeynta howlaha ka dhexeeya labada heer ee dowladda Soomaaliya. 3. arrimaha amniga qaranka. madashu waxay bogaadinaysaa geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee dalka ee dagaalka kula jira kooxaha argagixisada ah ee shabaab iyo daacish iyo kuwa la midka ah. madashu waxay ka xun tahay inaan weli la hirgelin heshiisyadii amni ee ay gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, gaar ahaan haykalka amniga qaranka ama National Security Architecture ee lagu saxiixay London bishii May 2017. kala aragti duwanaanshaha labada heer ee dowladda ayaa saldhig u ah fulin la'aanta heshiiska amniga. natiijada arrintaas ka dhalatayna waxay horseeday in kooxaha argagixisada ah aan weli laga wada sifayn dalka oo dhan. haykalka amniga qaranku waa hannaan amni oo looga kaaftoomi karo ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM, laguna dhisi karo ciidan qaran oo damaanad qaadi kara amniga dalka. sidaas darteed madashu waxay ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo haykalka amniga qaranka si loo dhiso ciidan qaran oo haysta kalsoonida guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. 4. arrimaha doorashooyinka. madashu waxay soo dhaweynaysaa geedi socodkii siyaasadeed ee doorashooyinka looga wada xaajooday ee kasoo bilowday dhuusamareeb 1, 2 iyo 3 kuna soo dhammaaday heshiiskii 17 Sebtembar ee Muqdisho lagu saxiixay. ha yeeshee madashu waxay walaac xooggan ka muujinaysaa kala aragti duwanaanshaha weli ka taagan hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar. madashu waxay shacabka Soomaaliyeed xusuusinaysaa
in mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee laga gaaray dowladnimada dalka 20 sano ee la soo dhaafay ay ahayd qabashada doorasho ku qotonta wada ogol iyo isqancin u dhaxaysa dhinacyada ay khusayso kuna dhacdo waqtigeedii. madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo daaleen doorasho dadban oo ku salaysan nidaam qabiil, loona baahan yahay in loo tallaabo doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan deegaan doorasho, axsaab siyaasadeed iyo afkaar xor ah sanadka 2025. madashu waxay bogaadinaysaa isla markaasna dhiirigelinaysaa dadaalada ay horseedka ka yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ee ay xalka ugu raadinayaan ismaandhaafka doorashada. madashu waxay soo dhaweynaysaa nuxurka warmurtiyeedka labada maamul ay soo saareen 24 December kaas oo ku salaysnaa in khilaafka doorashada lagu dhameeyo isqancin iyo isku tanaasul. madashu waxay ku baaqaysaa in laga fogaado tallaabo walba oo khalkhal gelin karta amniga iyo xasiloonida isla markaana burburin karta heshiiska 17 September 2020. madashu waxay kaloo ku baaqaysaa in laga fogaado qabashada doorasho baalmarsan heshiiskii 17 September oo aysan ku midaysnayn dhinacyada ay khusayso. sidoo kale madashu waxay ku baaqaysaa in laga fogaado hadallada xanafta leh ee horseedi kara horinta colaadaha marxaladan xasaasiga ah. madashu waxay cod dheer ugu baaqaysaa madaxda dalka inay hubiyaan qoondada dumarka ee 30% marka la xulayo xubnaha baarlamaanka 11aad. ka qaybgalka dumarka ee dowladnimada dalka wuxuu saldhig u yahay horumarinta dalka. sidoo kale madashu waxay ku baaqaysaa in bulshada rayidka ah ay kaalin mug leh ku yeeshaan geedi socodka doorashooyinka dalka, ha ahaato dhinaca talada, farsamada ama hirgelinta. si loo tiigsado hadafka doorasho qof iyo cod ah 4 sano kadib, madashu waxay ku boorinaysaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay qabtaan doorashooyinka dowladaha hoose, kuwaas oo saldhig xoogan u samayn kara nidaamka dimuqraadiga ah ee dalkeena. madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa ahamiyadda ay leedahay in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay wadajir uga shaqeeyaan in muddo xileedka soo socda ay golayaasha dowladda ay noqoto ama in madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa ahamiyadda ay leedahay in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay wadajir uga shaqeeyaan in muddo xileedka soo socota ee golayaasha dowladda ay noqoto mid lagu soo afjaro arrimaha hortabinta u leh dowladnimada dalka sida dastuurka federaalka, amniga qaranka iyo doorashooyinka. mahadcelin. madashu waxay u mahad ballaaran u jeedinaysaa dowladda Puntland iyo shacabkeeda oo si diiran u soo dhaweeyay kasoo qaybgalayaasha madasha aragti wadaagga Soomaalida. si gaar ah madashu waxay ugu mahad celinaysaa madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani iyo golihiisa xukuumadda si hagar la'aan ah ama sida hagar la'aanta ah ee ay heeganka ugu jireen intii uu socday shirku. sidoo kale madashu waxay u mahad celinaysaa Machadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda sida howlkarnimada lah ee uu u soo agaasimay shirkan. madashu waxay ku dhiirigelinaysaa machadka inuu sii wado madasha aragti wadaagga Soomaalida ee sanadlaha ah. madashu waxay u mahad celinaysaa dowladda iyo shacabka Djibouti oo 3 sano ee la soo dhaafay martigeliyay madasha aragti wadaagga Soomaalida. shacabka Soomaaliyeed marnaba ma halmaami doonaan kaalinta taariikhiga ah ee uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ka qaatay dib u heshiisiinta iyo dib u yagleelidda dowladnimada Soomaaliyeed. ugu dambeyn madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa in marxaladda kala guurka ah ee uu dalku marayo ay u baahan tahay in lagu hogaamiyo wada tashi, isqancin, isku tanaasul loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed ee ka soo daalay xasaradaha iyo khilaafyada. madashu waxay cod dheer ku sheegaysaa in 4 sano ee soo socota ay muhiim u tahay aayaha dalka, loona baahan yahay in la taabageliyo arrimaha hortabinta leh sida dastuurka, nidaamka federaalka, haykalka amniga qaranka iyo doorashooyinka. haddaba si loo tiigsado arrimahaas, madashu waxay soo jeedinaysaa in Machadka Heritage uu kala shaqeeyo labada heer ee dowladda sidii loo dhammaystiri lahaa qodobada kor ku xusan iyadoo la adeegsanayo kaadirka Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin.